waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala isugu kaaya keenay beydadkiisa ka mid ah in aan ku dhigno xafladda aan ku weyneyneyno dhalashada nabigeena muxamed sala allahu calayhi wasalama. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa culummada, saxaafadda iyo axbaabta kale ee soo xaadiray xafladatan. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dadka ama culummada isku howlay in caawa xafladan khatinka ah in meeshan ay ka dhacdo oo juhdiga ku bixiya ayakana waan u mahadcelinayaa. mahadcelin kadib waxaad ogtihiin bishan oo kale markii la gaaro dadka caashiqiinta ahi waxa ay dhigaan xaflad ay ku weyneynayaan ayna allah subxaanahu wa tacaala ay ugu mahadcelinayaan dhalashada nabigeena muxamed sala allahu calayhi wasalama ayay dhigaan. marka caawa halkan waxaa lagu khatimi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo xafladda ixtifaalka ayaa lagu khatimi doonaa oo masaajidkan markii bishu ay dhalatay lasoo bilaabay siirada nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalama iyo amdaaxdiiba lasoo bilaabay ayaa caawa la khatimi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. waxaa inoo jooga culummo kala duwan ayaa inoo jooga oo maaragtaa inaga haqabtiri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo mowduucyo kala duwan oo ku saabsan siirada nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalama. marka barnaamijkeenna waxaan ku bilaabanaynaa oon ku furfuranaynaa wax lagu furfurto waxa ugu wanaagsan oo ah aayadaha qur-aanka kariimka. waxaana inoo aqri doonaa haddii ilaahay yidhaahdo macalimkeena alqaari macalim jamaal falyatafadal mashkuuran maajuura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم معلن جمال قارئ وين آدي يوم هاتسن يهي markana waxaan ku xiji doonaa hadii ilaahay yiraahdo salliga nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxaana inoo qaadi doonaa Sheikh Ahmed Sheikh Hussein falyatafadal mashkuran ya rasul allah judul bil muna wa bi shafaa'ati bi yawm al jazai جدل بالمنى وبشفاعته أريد ضاح جنة لعاشقين وجنة له بيوم الفازعين حبيبي من قرأ مولده محبة حلت له شفاعة المشافعين وخادما لذلك وموفقون كذاك ما في المجلس والرتعين جدل بالمنى وبشفاعته ذاك من زين مدحه على غنت له الأحراء من المسجعين وبشفاعته وضن علينا حبه وينفع في ذي وفي القيامة أخي سمعين يا رسول الله جدع بالمنى وبشفاعته لولاه ما كان الوجود كله فقط به الأهمام بتناوعين وبشفاعته بكل لحظة علينا ذكره ولو عملناه لفزلة الرعين يا رسول الله جل بالمنى وبشفاعته شهر ربيع موسم الأحبة والله ووعيدنا المشرعين يا رسول الله جل بالمنى وبشفاعته إذا نرى نقول له يا مرحبا بك ربيع قلبنا ومضمعين يا رسول الله جل بالمنى وبشفاعته وظالما صلى على نبينا بنية لله بتضرع يا رسول الله جل بالمنى وبشفاعته بيوم الجزائر اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صدق الله العظيم. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaan malayhaa waxaa sukaanya keenay ixtifaalka oo muxuu ahaay nabiyullaahi maxamed waqti wilaadadiisa loo ixtifaalaayo maxabadiisa oo qalbigeenna ku jirta isukaanya keentay ee adduunyo kale isuguma aynan imaanin
taas muga waxaa waaye waa iska mashruuc waxa la ogyahay waaye qof kasta gurigeedii waxaa ka keenay inay siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo shamaaishiisa waxa laga sheegaya ay wax ka soo dhagaysato maxabadaasaa soo jiidatay oo goobta keentay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ictifaalkiisu waqtiyaalkan iyo waqti ka dhow midna sooma bilaaban wuxuu ka soo bilowday waqtigii ilaahay koomkan uu keenay oo uurka hooyadii ka soo baxay irhaasaadkii ka horeeyey oo hooyadii uurkeeda markuu ku jiray hooyadii ay la kulantay waa iska baab kale iyaduna mahiisaas waa muxaadaro kaamila waaye wax sahlan ma aha oo hadda dhow laakiin waxaan wax ka taataaba doonaa wax ilaahay naga fahamsiiyo waqti wilaadadiisii waxyaabihii dhacay nabiga calayhi salaatu wasalaam ictifaal oo la isugu yimaado dadka meelaha ka warramayo waxaan dad ka mida ka maqlaayay oo weli weyn culammadeena ahlu sunnada ah in ixtifaalka muddo dambe lasoo darisiiyey waxba kama jiraan ixtifaalka nabigu wuxuu bilowday waqtigii hooyadii uurkeeda uu ka soo baxayey maxaa yeelay nabiga hooyadii markuu uurkeeda ka soo baxayay haweenkii umuliyey oo hooyo ka soo qaaday haweenkan adduunyada jooga ma aysan ahayn horta dhalashadiisu waxaa laga joogaa waqtiga hadda aanu taaganahay 1497 bishii saddexaad hadda aan ku jirno laga joogaa nabiga wilaadadiisu waqtigaas ayay ahayd xilliga laga joogana waa intaas 1497 bishii saddexaad nabiga calayhi salaatu wasalaam cawadii hooyadii uurkeeda uu ka soo baxayey haweenkan adduunyada joogaa inay ka soo qaadaan waa laga ilaaliyey haween ilaahay adduunkan uu ka irtixaaliyey oo meel kaleeta uu ku martiqaaday ayaa u soo xaadiray sida siirooyinka ku sugnaatay ayagaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo qaaday iyadoo laga ilaalinaayo haweenkan adduunyada jooga farihooda inay ku taabtaan waxaa u ixtifaalay nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenkaas uu dhashay malaa'igta ilaahay cawadaas waxay ku jireen safsafay ku jireenay nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dhaweynahay iska dhaaf intaasi xayawaanka duurka jooga oo maalaayo caqilka ahu wuxuu isugu bishaaraynayay nabiga dhalashadiisii ixtifaalku halkaas uu ka soo bilowday ma aha ixtifaal waqtiyaal dambe la soo darisiiyey haddii loola jeedo anigu ma ogi xoolaha la gowracaayo iyo badarka la cunaayo iyo xalwooyinka la bixinaayo haddii loola jeedo ma ogi oo waqtigaas xoolo lama gowracin laakiin isu imaad la isugu yimaado nabiga dhalashadiisay ka soo bilaabatay marka haddii ayaamtan marka nabigu dhashay waqtiyaalka nabigaa ka soocay maalinta isniinta uu saad kitaabada ku aragteenba uu soonaay markii la weydiiyey wuxuu ku sheegay dhowr shay maalintaas soomidda uu sooman yahay dhowr shay buu ku tilmaamay shayga haddii mar saa'ilka la weydiiyo ou ashyaa badan shayga in lagu sheega la rabo muhiimaddu waxay tahay halka ugu horeeya waayo maqsuudku inta kale waxay taabic u tahay shayga maqsuudka ah loo muraadayo nabiga calayhi salaatu wasalaam markii isniinta soonkeeda la weydiiyey wuxuu yidhi waa maalintii lay dhalay buu yidhi waxyaabaha dambe oo nabigu daba dhigay oo waa maalinta laysoo bixi doono iyo waxyaabahaas waa iska taabic waaye laakiin asalka maqsuudka ah waxaa waaye maalintii aniga lay dhalay waaye oo ula jeedaa waxaad og tihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisii uu dhashay ninkii adeerkiisahay oo suuratu tabad looga hadlay islaantii addoontaaheeda ugu bishaaraysay walaalkaa wiilaa loo dhalay farxid uu ku faraxsan yahay dhalid wiil walaalkiis loo dhalay uu ku faraxsan yahay risaalo uma faraxsana rasuul ilaahay uguma faraxsana wuxuu ugu faraxsan yahay walaalkaa wiilaa loo dhalay waa caadada basharka haddii asaga u dhasho da walaalkii u dhasho da xabiibkiisa u dhasho waa lagu farxaa farxiddaasoo marka farxidda uu ku farxay
ayuu addoontaas xureeyey markaasuu wuxuu yidhi waxaad yeelaysa xor baa tahay buu yidhi xureyntii ou addoontaas farax dartii uu la xureeyey saad kitaabada ku aragteen abulahab markuu dhintay oo kabacdii muxuu ahaay sayidina cabbaas ibn cabdimudalib oo walaalkiisa uu ru'yo ku arkay markuu su'aalay wuxuu yidhi farxii nabiga aad ku faraxday muxuu kuu taray uu yidhi maalintii uu dhashay aad ku faraxday wuxuu ii taray buu yidhi in maalinta isniinta ah naarta layga soo saaro rasuulkaygana biyo macaan layga waraabiyo annagu kuma annaan qorin waxay ku qoran tahay bukhaariga kitaabka bukhaariga la yidhaha matnigiisay ka mid tahay marka farxidda uu ku farxayna wiil walaalkii lolale uu farxay risaalada uu ilaahay noogu soo dhiibay iyo rasuulka uu noo yahay iyo badbaadada uu naar naga badbaadiyey qofkii ugu faraxsan marka darajadiisu meesha ay taallaahu qofka caqlilu waa dareemi karaa إخوة الأعزاء شيخ حريرية شيخ محمد وحوق قابسدي haddana uu kor u yidhi mashruuciyada mawlidka adiladeeda waxaa laga taabto waxaan isleeyahay dadka ahlu islaamka ah sheekheena sheekh shardiyaaba hadda in nagu filan noo sheegay dadka hadda naga soo horjeedana waa dadka inta fariista dadka wax u sheegi lahaa in badan oo ka mida waxaana isleeyahay aadaa looga dheragsan yahay dadka ahlu islaamka waddada ay ku socdaan oy xabiibka ku weyneynayaan oy farax muujinayaan nabiga haddii la gaara mawlidkiisii wadda u saxan oo ay mar hore ay maaragtay meel dhigteen inay saxan tahay ay meel dhigteen kadibna ay farax uun muujinayaan waayo marka qofka muslimka ah waa laasim wuxuu samaynayo camalka uu samaynayo inuu shareecada waafaqsan yahay iyo inuu dhinac marsan yahay inuu ka ogaadaahu waa laga maarmaan intuusan falin inuu ogaadaa waa laga maarmaan waxaan leenahay marka alixtifaalu bilmawlidi nabiyi sala allahu calayh wasalama mashruuc shay mashruuca shareecadu ogoshaah waaye oo ilaahay macaalimu diinkiisa ka mida ومن يعظم شعائر الله فإنها من تعوى القلوب إلهي يري شعائر الدين كي كمتهاي محايا لو حوحا بارسنيهاي هدي لصوت دو نبي عليه الصلاة والسلام إن لغو فرحو أو فرح الله موجيو سيدي حبيب كين محمد هاي أسيق لفتي سو موجي عليه الصلاة والسلام مركا هدي ليرا احتفاله من أول أو المحتفلين من هو أول المحتفلين يا هرتو احتفاله وجوري يا مولد النبي عليه الصلاة والسلام قفك مولد كو احتفاله وجوري يوها أول المحتفل هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قفك جوري أو احتفال سميه سيد شيخنا شيخ شرد أو نوشة دوحوها النبي عليه الصلاة والسلام مركا إن لجيراه إلهي وكرون يهي فاطميين باللوضي وجو وحجر معه إن هذا ما أنت لقاعد على عصيه وحاب اللعبة احتفال كمولد كفاطميين باللعبة أرنكاس وأرنسح معهن معايا لقف وحكا غرسل معهن نبي هدي له ويدي محادو سومي هدي له يري هدو يري ومال انت الله يقول لي محيكو تسينا انتاس inuu nabigu ixtifaalayo oo tacdiiminayo oo weyneynayo dhalashadiisi inuu weyneynayo mar haddii dhalashadiisi nabigu oo weyneeyay kiifiyada uu weyneeyay waxay ahayd inuu ku faraxsan yahay dhalashadiisi weyneyntiina wuxuu ka cabira nabiga calayhi salaatu wasalaam soom uu ka cabira adigu inaad wax kale diiniya aad ka cabirtaa wax ku diidaa male maxaa yeelay shareecadu waa gudaweyn tahay إلهي قرآن كيس كريم كوحكوليه ما فرضنا في الكتاب من شيء كتابك وحبل له قمتين هذا كتابك قدام وحبل له قتين نين كان احتفال أي حق وكياني نين كان دي سمح وكياني وحامر كاس ميزان شريعتنا نحت على ميزان أهوان شريعتنا نحت على يا ميزان إلهي مركو ليه ما فرضنا في الكتاب من شيء
kitaabka waxba loogama tegin oo waa lagu sheegay wax walba lagu sheegay kitaab kale sooma socoyo ilaan koonkana ilaahay wuxuu u talagalay kitaabkan in lagu maamulo haddii mar waxba loogama tegin la yidhi waxaa lagaa rabaa adigaa bilowday manciga iyo ficilka waxaa soo horreeyey ficilka ixtifaalka nabiga loo ixtifaalayo mawlidkiisi waa la bilaabay qofti bilowday waxay ku bilowday ayadu waa sheegi qofti ku qabsatana waxaa laga rabaa inay wixii ugu celi lahayd ay keento ninkuu ixtifaalka bilaabay wuxuu leeyahay ilaahay qur'aankiisa waxaa ka mid ah oo soo deji maadaama maa faradnaa fi lkitaabi min shayin haddii la yidhaaho kitaabka ka keen mawlidka ixtifaalka loo samaynayo ixtifaalku muxuu xambaarsan yahay in nabiga siiradiisa laga sheekeeyo akhlaaqdiisa laga sheekeeyo la isu yimaado icaamu dacaam la sameeyo qurbaan la bixiyo qasaa'idii nabiga lagu ammaanaya la qaado intaas uu xambaarsan yahay soo ma intaas uu xambaarsan yahay maxay ka kooban tahay wax khayr ay ka kooban tahay ilaahay wuxuu yidhi wafcalu lkhayra lacalakum tuflixuuna khayr ha la sameeyo waa liibaanaysiin daliil kale maa kuu dhiman markaas hortay fadhigan meeshaan isku nimid jalsadan mubaarakada qayimada ah maxay ku saabsan tahay litacdiimi sayidina wa xabiibina muxamed ibni cabdillaah rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam weynayntiisaan iskugu nimid in nabiga weynayntiisa iyo fadaa'ishiisa laga sheekeeyo la isugu yimaado wax innagu aan bilowni ma ah wax mashaa'ikhdeennii iyo kuwii ku xiga ay bilaabeen ma ah waa wax saxaabadii nabiga sala allahu calayhi wasalama ay jideeyeen innaguna waxaan ku taagannahay da'bigoodii iyo dariiqadoodii iyo siiradii iyaga laga soo gaaray isu imaatinka noocan ee nabiga dartii la isugu imaanayo ee mawliidka la yidhaahdo mawlid الnabiyi salى اllahu calayh istilaaxiyan waxaa loo yaqaanaa isu imaatinka noocan xagga luqada haddii loo kaco macaani kale haba yeeshoba oo zamankuu nabiga dhashay mawlid الnabiyi iyo makaankii lagu dhalay yaa la dhihi karaa kutubaha laga alifay mawlidka nabiga salى اllahu calayh wasalam waa lagu magacaabaa laakiin istilaaxa loo yaqaano mawliidka waa isu imaatinka noocan ah ee nabiga dartii la isugu imaanayo hal shay waxaan filayaa sheekhana sheekh muxyidiin baa hadda ka hadlayay waxaan oga sii noqonno ma laha isu imaatinkan mashruuciyadiisa waa wuxuu sheekh hadda ka hadlayay wax mashruuca oo diintiina ay jidaysay weeye kuwa maaniciinta ee diidayo shayga haddii la diidayo daliil buu u baahan yahay waxaanaan diiday waxaasaan ku diiday soo maa waxa la daliishaday ee wax lagu diido waa wax diinteenna usuushu ay sheegeen haddaad leedahay waxaan aayaddaasaa diiday ha haddaad leedahay waan xadiidkaasaa diiday nabiga sala allahu calayhi wasalam haddaad leedahay oo xadiidka nabiga muxuu noqoni karaa qowlkiisa oo nabiga uu la baashiray u yidhi waxaani wax bannaan ma ah wuxuu noqoni karaa wax agtiisa lagu falay oo deetana nabiga uusan ka raadin noqon oo uu inkiray waad maqasheenoo dadka markii bishan ay bilato qiyaamahooda uu kaco ee in ay mu'miniinta muxibiinta isu imaatinkooda ay bidco ku sheegaan oo ay wax ka sheegaan u tafaxayto awalkooda iyo aakhirkooda haddaad eegtid ilaa bakrati abiihim wax ay daliishanayaan oo aanan ka ahayn nabiga ma uusan falin saxaabaduna ma ayna falin salafkii saalix ahna ma ayna falin oo aad ka maqlaysaan miyaa jira waa maya soo maaha intaan bal haddaan dib u noqonno usuulka intaan miyaa la daliishadaa waxaan nabiga ma falin daliil ma noqoto waxaa la daliishada diinteennana ka mid maaha hadduu ku yidhaahdo marka kan diidan nabiga ma falin rasuulkii saxaabadiina ma falin war daliil aad ku diiddo lama aadan imaanina daliilkeenne waxaase mawliid inuu mancoon yahay daliilu ma aha nabiga meeluu ku diiday miyaad haysaa waxaan ma bannaano uu yidhi waa maya aayad miyaad haysaa timid oo le waxane wax bannaan ma aha waa maya kuma keeni karo
nabiga waxaan ma uusan samaynin saxaabadiina ma ayna samaynin daliil ma noqonayso maxaa yeelay inayna daliil wax la isla ogyahay oo a'imadii usuuludiinka inoo dhigay usuulu fiqiga inoo dhigay mustalaxa inoo dhigay waxa la daliishanayo ka hadlay ma ayna ku darin ka midna ma aha kaba soketaa adiga le waxaa nabiga ma uusan samaynin saxaabaduna ma ayna samaynin imise shay ee rasuulkan uu samaynin saxaabadan ayna samaynin salafkiina aad ku dhaqmaysaa adigan le waxaa nabiga ma uusan samaynin imise shay baad ku dhaqmaysaa oo wada oo diin aad ummadda oga dhigi oo nabigana uusan samaynin saxaabaduna ayna samaynin salafu saalixina ayna samaynin idan waxa marka inta ayna samaynin anuu iga mancoon yahay adigana waa ku bannaan yahay miya jawaabtu horta waa taas maxaa yeele waad ogtihiin caqiidadii bay keeneen wax salafu saalix iyo rasuul iyo saxaabatoona ayna samaynin fiqhigii bay keeneen shay ayna keenin waxa ma laha kay keeneen iska badaaye kan jiro aynu ognahay een ku wada dhaqmayno ee nabigana uusan ogeyn oo saxaabada ay ogaayeen ama xataa saxaabada ayna ogeyn ayaa ciida ka badan ta hadda uu inoo sheegaya sheekha ayaa ka mid ah qur'aankan munazalka ah ee horteenna yaallo imise shay oo bidca ah ee uxditat bacda rasuulillaahi oo ku jirta qur'aan oo masxafkeena ku jirta كثير وفربدين رسول وحن موسى نوجين هدي لا يراهدو قرآن كأي بدعك بوها وإلا قصار أباهنا تهر دليل من نقطه الدليل تهر نقطه يسوع مرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا تعالى وحي كمتها يعني مقتضيات كإيمان كتصديق النبي الرماي أي كمتها والنبي صلى الله عليه وسلم تعالى كيسو وشيء واجب أو فرض عين واحد ما أهن وحصنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا تعالى إلهي القرآن كسرك يري النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نبي أيا وأوليس المؤمنين نفتو ذا نبي أيا وأوليس سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وكي حديث صحيحة كلها لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أحد كين من نقناه يمد لجهل الإيمان كامل إلى أن كان نقضى مدو يجتشعل يهي أو يجتشعل نفتيسة يا ولد كيسة يا والد كيس يضد كذا إلى أو يجتشعل هذا مركا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وواجب وحيالها دقفكم مؤمن كان النبي يقول تشعله صلى الله عليه وسلم ويرى هي أو دواعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم كمله وحا كمله النبي صلى الله عليه وسلم سيدا ونقولنا حريصين شيء سيدا ونسو جرسي الدين كان waxyaalaha qofka lagu jeclaado waxa kamid ah ihsaanka uu ku sameeyo ahadka iyo nafciga ka soo gaara ahadka xaqiisa waxay kamid tahay waxyaalaha min dawaa'il mahabbada waxyaalaha keenay kamid tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ihsaanka naga soo gaaray xaqiisa iyo shafaqada iyo rahmada iyo dhimrinta ahad kale uu naga soo gaaray ma jirto waan ka jeclaan lahayn ilaahay baa quraankiisa kariimka ku tilmaamay laqad ja'akum rasuulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum hariisun alaykum بالمؤمنين رؤوف رحيم إلهي باشا النبي صلى الله عليه وسلم إن وحكستو أننا ندبها يكو أدقيهين إنو يهي مد أننا نقود داره وهدايتنا يا إيمان كأننا يسيدي قال لماذا لو قبح لها النبي صلى الله عليه وسلم بشرية لنبا الله صدري سيدو وقبح لها مقدقة يا شركة يا كفر يسيدو وقبح لها ونقبح لها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانك إسلام نمدا ينورك يمعرفة إلهي وقبحين لها مرك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وسبب كيس أيان وقبت بعدنا النارتا النبي صلى الله عليه وسلم سبب كيس أيان كقرنا إلهي سبحانه وتعالى وإلهي سبحانه وتعالى معرفة سأن كهرني وأكتي النبي صلى الله عليه وسلم حديث كأيوريني سي أمنا عائشة صحيحها أمنا عائشة واحد رضي الله عنها وعن أبيها maalin maalmaha kamid ah waxa arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam faraxsan markaas waxaan isqaybay maanta chance ka faa'iideyso nabigii uu tagtay sallallahu alayhi wasallam waxa nabi Allah ii ducee ilaahi bari markaas wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam Allahumma ighfir li Aisha ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhara ma asarrat wa ma a'lanat ilaahu Aisha u dambi dhaaf dambigeeda wixii hore iyo wixii dambaba wixii ay sareysatay iyo wixii la jeertay markaas waxay tiri Aisha aad ayaan u farxay tiri إلى النبي صلى الله عليه وسلم دبتي سأن كدعه مركز النبي وحي صلى الله عليه وسلم دعاء إذا ما كفر حد قلنا عائشة مركز ما هاي غيبة أمنا عائشة
maxayse ii farxad gelinayn ducadaadu adaaba ii duceeyey oo ilaahay dembigayga inuu dhaafo dhammaantiis igu duceeyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa caaisha innahaa la ducaa'ii liummatii fii kulli salaatin caaisha middaas waa ducadeeda aan u duceeyo ummaddayda salaad kasta aan ugu duceeyo wey marka nabigeena sala allahu calayhi wasalama yacni waqti salaad kasta ayuu ummaddiisa u duceynahay annaga nebiga sal ly slam waxa aan siinay ama amaalkaan u galnay ama waxaanu lakugu duceynahayo oo ducadaas aan ku mutaysanno maxay tahay waa nebiga sal allahu alayhi wasalam raxmaddiisa wey qof kastoo muslima marka ayay waajib ku tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu jeclaado uu yidhaahdo jaza allahu can nabiyina sala allahu calayhi wasalam maa jazaa nabiyan can ummatihi nebiga sala allahu calayhi wasalam ma gudi karno amaalkiisa iyo intuu noo galay ma gudi karno oo ay ugu weyn tahay macrifada ilaahay oo uu sabab noogu yahay qof gudi karana lama arko marka sidii rasuulku sal allahu alayhi wasalam uu yidhi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu fain lam tastadiicuuhu fadcuu lahu waxaa la isugu imaanahayo oo loo guntahayo majaalistan oo kale waa ducadii iyo shukrigii nebiga sala allahu calayhi wasalam amaalkii uu noo galay iyo macruufkii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu noo sameeyey السلام عليكم السلام عليكم سبحان نبينا والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سبحان نبينا والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سبحان نبينا والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سبحان نبينا والسلام يا كون أكبر الله يا سيرو يا كو أكاكر يا سكول السمنو يا كي ماذا وكانوا يرنون نغير معاك يقين قاسيه سبحان نبينا والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سبحان نبينا والسلام وابكي الله بدم قرح سنة النبي ومن يوم عقب حالك يقول بايوم بشير قلبي وغايب وغبيوم بوكسي حبيبي بلا شروط لي الله يبوكسي حبيبي بلا شروط لي سبحان نبينا والسلام عليكم السلام عليكم السلام نبينا سبحان نبينا والسلام نبينا السلام عليكم السلام نبينا سبحان نبينا والسلام عليكم سبحان نبينا والسلام عليكم تبت النبور إذا تاغرنا في ديا نتعلمي النبي ونتاكلي توسنا لها تاريا قيامه تجكاغنو قلي تجرباته سبحان نبينا والسلام عليكم السلام عليكم نبينا السلام حبيبي سبحان نبينا الله الله السلام عليكم السلام حبيبي سبحان نبينا والسلام سبحان نبينا والسلام عليكم سبحان نبينا جعلك أوقي جيفك يا النعام جاهك شرفت يا هرجوك سلام كل جوق مرك بجسنين جورت نورك يا كجل بحر سبحان نبينا والسلام عليكم السلام عليكم السلام نبينا سبحان نبينا والسلام سبحان نبينا والسلام عليكم سبحان نبينا حقك عدي حمها الروايو حبيبك اللي حضرتي سلاح تقيو حبك سنبقي له حروايو حسن يا حسين حرمض وضباتاي الله حسن يا حسين حرمض وضباتاي سبحان نبينا
والسلام عليكم السلام عليكم السلام نبيك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سبحان نبيك السلام سبحان رسولك والسلام عليكم سبحان رسولك والسلام عليكم لغنا نكي من حقاق اللازمة الذي وايا يولنكي كل قايو لا فر معك هذا يقول لي ضحية لما هلو لك أسروح للالتماء الله لما هلو لك أسروح للالتماء سبحان نبيك والسلام عليكم السلام عليكم السلام حبيبي سبحان نبيك الله السلام عليكم السلام عليكم سبحان نبينا والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حبيبي سبحان نبينا والسلام عليكم سبحان نبينا والسلام عليكم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه